kani waa haraadiga gaariga qarxay sidana loo sheegay waxaana ahaa gaari nooha ah ciidanka ammaanka oo celiyay ayaa sababtay in ugu dambeyn halkan uu ku qarxo waxa uu saameeyay oo burburkii gaarigan uu geystay kamida in mootadan oo sidana loo sheegay dad ay saarnaayeen rakaab iyo qofkii waday waxyeeladu gaartay waxa kale oo ku jira gaarigan noohada ah waxa kale oo kamida gaarigan kale isaguna ah waxa loo yaqaano caasi ama hoomeysi Soomaalidu u taqaano gaariga sida ka muuqata burbur xoogan ayaa gaaray oo dadkii saarnaa oo halkan lagu rarayay waa uu saameeyay waxa kale oo isla saameynta kamida mootadan kale oo iyaduna dad kale ay saarnaayeen sida naloo sheegay waxa ka sii xageeyay mootooyin kale oo uu saameeyay qaraxani waxa uu qaraxani ka dhacay isgoyska Ax Control ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Ax Control Afgooye ciidamada ammaanku waxa ay sheegeen in 4 askari ay ku dhaawacmeen oo uu ka mid yahay askarigii celiyay gaariga isqarxiyay waxaana loo sheegay in soo istaagay bartan lagu baaro gaadiidka uu diiday inuu istaago dabadeedna uu soo tuuray waxyaabaha qarxa mid kamida askari rasaasiye ayaa gacanta ka go'day sidana loo sheegay waxa kale oo dhaawacmay 3 askari oo kale sidaas waxa sheegay sargaal ka tirsan booliska oo aan taleefanka kula hadlay waxyeeladu waxa ay gaartay burbur hantiyadeed iyo mid nafeed inkastoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda qasaaraha ka jira halkan oo la xiriira dhaawac iyo dhimashada ilaa iyo hadda tirakob lagama hayo dhanka booliska iyo sida oo kale laamaha caafimaadka oo ilaa iyo hadda wax jawaab ka soo bixin gobjooga oo qarax ka badbaaday ayaa nala hadlay waxaana uu sharaxayaa qaabka qaraxu u dhacay iyo indhihiisa waxa uu ku arkay ayga waa Saciid Cali Aadan waxaan arkay baabuur bi'aliyana anagoo baabuurka rarayna hal mar xabada bilowdeen xabadii markay bilowdeenna waa kala cararnay guri lagu dhow gaariga waa ka cararay guri nagu dhawaan istaagnay oo anagoo badan aan galnay abar kadibna qaraxa dhacay gaarigiina gurigiina waa lagu soo dumay waxyeeladu sidoo kale waxa ay gaartay dad badan oo shacab sidana loo sheegay waxaase sida ciidanku ay sheegeen nasiib wanaag oo ahaa in xabadi ka horeysay gaarigu inuu qarxo taasina ay keentay in shacabku ka didaan isgoyskan mashquulkii ka jiri jiray isgoyskan ayaa yaraaday kadib markii hore loo dhagax dhigay wadadan oo xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo Ax Control laga dhagax dhigay dabadeedna dhismaheeda la bilaabay Cali Aadan Muumin goobjoog Ax Control Afgooye Muqdisho